qaybta la yiraahdo dhiigoodu ee uu yahay marka ugu horeysa waxaanu eegi doonaa qofka eeda dhiigiisu yahay waxyaabaha uu ku fiican yahay dabeecadihiisa wanaagsan waxa la tilmaamaa dadka dhiigoodu ee uu yahay horta dadka u badan xagga akhriska iyo qoraalka ay ku fiican yihiin baa la yiraahdaa haddii qofku ee uu yahay dhiigiisu qoraalka iyo akhriska ayuu ku fiican yahay waa dad waxna aad u akhriya waxna qora xagga tiifiyada marka ay daawanayaan baa la yiraahdaa dadka eedahay waxay ka daawadaan barnaamijyada in la qososho ah amba kameradan la yiraahdo hiding camera waxyaabaha noocaas ay ka helaan waxay jecel yihiin deegaanka dabiiciga dadka eeda ahi tusaale ahaan meel dabiiciya oo buur ah oo biyo ay ka soo dhacayaan oo laamaha iyo shimbiraha dhawaqooda ay isu baxayaan oo cidla ah ayay ka helaan meelaha dabiiciga ah dadkaasi inta badan waxa la yiraahdaa dad dhaadhac yar weeye qofka hadduu dhiigiisu ee uu yahay wuu dhaadhac yar yahay maaha dadka ku qaldama soomaalida waa dadka yidhaahdo kuma daare hay daarin yacni ma ogole qofkaasi inuu isna wax dadka yeelo isna wax la yeelo waxa kaloo ay dadkaasi ay jecel yihiin baa la yihahdaa waa dad xarago badan aada u xarago badan dadka eeda waa dadka xaragooda ee ugu xaragada badan waa ee baa la yihahdaa daawada waxyaabaha aan ka sheekeynayo adiga laftiga waxaan ugu talagalay inaad baaritaan ku samaysid haddaad nooca dhiigaagu yahayna waad dareemi kartaa dadka eeda ahi waa dad aada u xishood badan baa la yihahdaa oo khajilaad badan khajilaadu waa xanuun laakiin xishoodku baa la yihahdaa waa sifo wanaagsan laakiin khajilaadu inta badan waxay yidhaahdaan waxa weeyaan waa psychological disease baynu marka qofku bini aadmi ku noqon karaa yani wax nafsi oo mushkilad buu ku noqon karaa laakiin xagga wanaagga waxa la yihahdaa qofka eedihii markaynu eegano wanaagyada dhiigga eedu waa qof xishood badan weeyaan dadka eedi waa dadka inta badan ka warwara shaqada u taala haddii uu caawa ka seexdo shaqooyinkii isagoon dhamaystirin aad buu uga warwaraayo siduu u dhamaystiri lahaa buu ka warwaraa in badan dadka dhiigoodu uu eedu yahay waxyaabaha kale ay ku fiican yihiin waxaa ka mid a waa dad ballan markuu galo sida ay tahay inuu u uufiyo wuu jecel yahay ballamada inta badan hadduu galo wuu uufiyaa hase haatee waxa la yahdaa ma jecla inay ballamada rasmiga ee tooska ay galaan hadduu galana inta badan wuu fuliyaa baa la yahdaa xagga marka laga eega IQ-da iyo maskaxda iyo intelligentka waa dadka ugu maskaxda badan baa ugu maskaxda fiican bini aadmiga dadka eeda ahi dadka eeda ahi sidoo kaleeto waxaa la yihahdaa waxa ka soo baxa dadka in la yihahdo hogaamiyaasha amba leadershipka qaybta bida in u iman doono laftigooda leadershipku ka soo baxa laakiin waxaa la tilmaamaa oo daraasado badan oo la sameeyey ay sheegaan qofka eeda ahi dadka leadershipka hogaamiyaasha inay ka soo baxaan waxaa la yidhaahdaa dadka eeda ahi dadka ugu hurdada yar weeyaan xagga seexashada in yar bay seexdaan 24 saacadood 3 saacadood 4 saacadood 5 saacadood 6 saacadood waa more enough aad bay ugu filan tahay la yihahdaa aad bay markaa hurdadoodu ma badna meela gooniyana way ku gamaan meelaha buuqana kuma gamaan sidoo kaleeto waa dadka ugu dareenka badan haddii laga sanqadho isla markiiba buraaruga ayaa lagu tilmaamaa arrinta kale xiisaha lihi waxa weeye aan doonaya inaad baaritaana ka samaysaan waxaa la yidhaahdaa dadka eeda ahi xagga guurka markay noqoto waxa nasiibkoodu kusoo hagaajiya inta badan dumar fool xunxun dumarka qurux badan nasiib uma helaan bal taana waad baadhi doontaan idinka laftigiiniyo inay aragtidaas ay sax tahay in kale waxaa la yihahdaa dadka eeda ahi dumarkoodu amba xagga maaragtay inta badan kuma hagaagaan nasiibkoodu dad qurux badan oo qolo kaloo iman doonta qolada ooda markaynu marayna inanu tilmaami doonaa xaggan haddaba dabeecadaha xunxun ee uu leeyahay qofka eedi waa maxay intaa aynu soo tilmaanay waa dabeecadaha wanaagsan uu qofka uu leeyahay dhiiggiisu uu yahay eeda sida ay daraasado fara badan ay tilmaamaan daraasadahaasi aynu inta badan cuskanayno aynu inoo ah meel aynu u noqonayno waxay tilmaamaan qofka eeda ahi waxyaabahu ku xun yahay waxaa ka mid a waa dad aada u cadho badan weeye waa dad dabeecaddooda aanay wanaagsanayn
waxa kaloo la tilmaamaa dadka dhiigeedu ee uu yahay waa dadka ugu warwarka badan, warwarkoodu uu badan yahay, waa dad warwar badan oo warwarkoodu uu badan yahay. xataa waxa la tilmaama qofka eeda ay markuu telefoonka kusoo dhaco saa u eego in badan buu ka fikira oo saatalo qofka kula soo hadlay telefoonku muxuu ku weydiin doonaa, haddii xataa gurigiisa laga soo hadlo xataa ma mushkilad bay sheegayaan, in badan buu ka warwaraa. marka waa dad warwar badan. taasuna waa ta samaysaa in hormoonaad fara badan ay calooshiisa ay ka soo baxdo oo ay raadayso, oo xanuunadan aynu tilmaami doono goordhow waxyaabaha sababaanba ka hoos gareeya waa warwarkaa faraha badan baa ayaa ka mid a. waxaa la tilmaamaa kaleeto dadka dhiigoodu uu yahay dhinaca markaynu eegno dabeecadihiisa xunxun waa dad hadday maalan dadka balwadaha hadday isticmaalaan qaad oo kaleeto hadduu isticmaalo amba hadduu bun cabo habeen oo kaleeto ma seexdaan, hurdadu ma timaado. waa waxyaaba la eegay weeye. waxyaabaha qaadku uu ka mid yahay, waxyaabaha uu bunku ka mid yahay hadday ay cunaan waxa laga yaaba hurdadu inaan habeenka aada ugu soo dhicin. haddii ay balwadaha noocaas isticmaalaan waa dadka inta badan la yahdo waxa ku bata waxaan lahdo Soomaalidu tahda khayraada iyo waxyaaba caynkaas ku bata. marka raado weyn bay ku yeelataa arrintaasi. waxa inta dadyowga dhiigooda uu yahay waxyaabaha ay ku xun yihiin oo kaleeto waxaa ka mid a amba dabeecadaha xuna uu leeyahay waxaa ka mid a waxa intaa u dheer waa dad kooban oo aan asxaab badan lahayn. waa dadkan lahdo waxa weya waa isolated wey, waa dad aan xidhiidh badan lahayn, asxaab badan lahayn, dad dhexgelitaankoodu ma fiicna, attraction badan ma leh. marka waa waxyaabaha dabaa'ica ay leeyihiin qofka dhiiggiisu uu yahay uu leeyahay. haddii aynu u yaro gudubno dabeecado badan oo kale uu leeyahay oo xagga way jiraan, laakiin waynu soo gaagaabinaynaa. haddaba aynu bal tilmaamno ilaahay subxaanahu watacaala qofka dhiiggiisu uu yahay waa maxay raashinka ku habboon ee ay tahay inuu isticmaalo. waayo habdhiska qofka bini aadmiga ilaahay subxaanahu watacaala qof walba sibuu u sameeyey, xikmad ilaahay oo rabbaaniya iska jirtaa. marka dadka dhiigeedu uu yahay waxaa la tilmaamaa in dhaayatkooda amba raashinkooda aada loo ilaaliyo, loo kantaroolo. weliba waxa weeyaan waa vegetarian dadkan lahado, waa dadkan khudaar cunka ah weeye. khudaarta ayaa maaragtay jidhkooda ku habboon inay isticmaalaan, iyo dhiigooda iyo habka caafimaadkooda waxa ku fiican inay isticmaalaan waxyaabaha khudaarta ah. sidoo kaleeto waxa ku fiican baa la yidhaahdaa ku habboon inay cunaan waxaan lahahdaa hilibka cad. hilibka cad waxaanu uga jeednaa waa digaaga iyo kalluunka iyo wixii la halmaala inay isticmaalaan baa fiican ayaa la yidhahdaa marka caafimaadkooda la eegayo. sidoo kaleeto raashinada faraha badan ee kala duwan uma wanaagsana dadkaasi, waayo calooshooda ciladaha ayaa ku badan. hilibkuna uma wanaagsana, hilibkan cas uma wanaagsanaa oo cilado fara badan ayuu ku sameeyaa. marka iyaga waxa weyan waxa ku habboon ee jidhkooda ilaahay subxana watacaala ugu habboon waxa weeyaan waa waxyaabaha khudaarta ah iyo hilibka cad weeye. aadna uma xiiseeyaan dadka eeda ahi hilibka ma xiiseeyaan, xataa caanaha ma xiiseeyaan. way cabaan waanay cunaan hilibka, laakiin ma xiiseeyaan. sida qolooyinka soo socda way ka duwan yihiin. bal aan u gudubo waa maxay xanuunada probability ku dhici kara dadka eeda ahi. daraasadahu inta badan waxay sameeyeen, markii la sameeyey waxaa la ogaaya dadka xanuunka lahada kansarka weliba noocan caloosha iyo ku badan dadka eeday u badan yihin. daraasaa lagu ogaaday. waxaa laga yaaba haddii imanka la baadho dad fara badan 10 qof haddii la baadho oo kansar qabad in 8 ay noqdaan baa suuragala. waa probability hadda waxiyo maaha baan idin sheegayaa, laakiin waa wax suuragal ah. dadka xanuunka kansarka ugu faraha badan oo ku dhaco daraasado waxay sheegayaan inuu yahay dadka eeda ah. waa dadka calooshoodu ciladaha ay ku badan tahay. xanuunada adigu kuwa ugu badan kuwaas weeyaan. bal aan tilmaamno waa maxay waxyaabaha ku habboon dadka eeda ahi xagga shaqada marka la noqoto shaqo inay shaqeeyaan. dadka xisaabaadka amba bankrisku way ku fiican yihiin. dadka garyaqaan wuu noqon karaa qofkaasi. dhaqaalayahan buu noqon karaa. qoraano wuu noqon karaa. dadka qoraalada ee buwaagta qora ama noveliska qoraan way noqon karaan. waa shaqooyinka ku habboon. shaqooyin kaloo fara badan way qaban karaan, laakiin shaqooyinka ku habboon weeye. intaa haddaan kaga gudbo nooca la yihahdo
blood type A waxaan u gudbayaa qaybta labaad oo ah B inagoo aada u soo gookoobaynaa noocan lahdo B bal aynu eegno waxyaabaha horta marka hore ay ku fiican yihiin dadka B-da ahi waa dad dabeecadoodu ay wanaagsan tahay aad u dabeecad fiican baa lagu tilmaamaa waa dad dhaqan wanaagsan baa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa oo kaleeto waa qof hogaamin kara wax laftigiisu oo xagga kaa uu kala wadaaga dadka eeda ah xagga hogaaminta iyo leadershipnimada uu kala wadaaga baa la yidhahdaa waa dad hogaamin samayn kara baa la yidhahdaa waa dad maareyn kara mashaakilka mashkilad kastoo kusoo dareysta waa dad maareyn kara problemiska way maareyn karaan waa dad wixii mushkilada maareyn kara ayaa la tilmaamaa waxa kaloo la tilmaama waa dad waxa ay doonayaan gaadha haddii uu himlo tilmaamsado himladaa waa dad xaqiijin kara weeyaan oo aan ka daalin ama aan dismoral oo kale aanu ku dhicin halka eedu qofka eedu haddii ay problems kusoo baxaan isagoo doonaya inuu wax gaadho waxa withdraw buu ka sameeyaa wuu ka tegi karaa baa la yihahdaa laakiin qoladan baydu dhiigoodu yahay B waxa ay doonaan way xaqiijiyaan baa la yihahdaa sidoo kaleeto waxa la yihahdaa waxa iyagu marka tifiyada ay daawanayaan waxay ka helaan wararka baa la yihahdaa wararka dhaadheer waliba analysiska amba taxliilaad kale muddo dhan bay fadhihi karaan telefishon hortiisa oo kolba war iyo taxliilaadkooda uu daawan kara laakiin qofka eedu intaa ma u dul qaadan kara la yihahdaa ayo isagu barnaamijyada aan tilmaamo oo kaleeto ayuu iska jecel yahay laakiin wararka dhaadheer ee falaqaynta leh biidu aad bay uga heshaa baa la yihahdaa dadka uu yahay saaxiibtinimada way ku fiican yihiin noocani dadka biidi saaxiibtinimada way ku fiican yihin waa dad saaxiibtinimo iyo habdhaqan fiican leh waa dad naftooda inta badan sharxa baa la yihahdaa waxaasaan aqaana waxaasaan ahay oo soo saara oo qof soo saara weeye dad soo saara muujiya nooca biida ayay ku badan yihiin baa la yihahdaa waxay nasiib u helaan xagga nasiibka guurka markay noqoto dad iyo dumar qurqurux badan bay nasiib u heli karaan oo kuwaa way kaga duwan yihin kuwii eeda taasna waa la tilmaamaa waxyaabaha ay ku fiican yihiin amba dabeecado wanaagsan ay leeyihiin haddaba waxaa jira waxyaabo ay ku xun yihiin oo dabeecadaha dhinaca xun ah waa dadka boodada le baa lahdaa waa dad booda leh markiiba xanaaqaya sidoo kaleeto waxa lahahdaa waa casabi waa dadkan casabiyiinta ee nervoska ah ee markiiba maaragtay cadhada waa dad ilow badan baa lahahdaa ilowgooda uu badan yahay waxbuu iska iloobaya waxa laga yaba haddaad la balantid inuu ballankiiba iska iloobo ayaa la tilmaamaa dad aada dhugashadoodu ma badna bay dhahdaan dadka dhugashada badan ma aha aada wax ma dhugtaan sidoo kaleeto waxa lahdaa marka ay wax qabanayaan mas-uuliyad badan iskama saaraan xil badan iskama saaraan wax halka qofka eeda ahi uu ku dhimanayo wixii uu ku fikirayo isla wixii fuli laakiin qoladan waxa lahdaa biid ahi mas-uuliyad badan iskama saaraan wixii ay qabanayaan haddaba cuntada ku habboon waa maxay noocan biid ahi number one horta waxa ku habboon baa lahahdaa waxyaabaha caanaha iyo wixii laga dhambaasho wixii laga sameeyo caanaha waa raashinkooda koowaad ee jidhkooda ilaahay subxana wa tacala siduu abuuray ku habboon cuntooyinka midhahaana way u fiican yihin naftooda iyo jidhkooda habdhiska iyo qaabka jidhkooda waxyaabaha midhaha ee firiga ah kuwaasna way ku fiican yihin baa lahahdaa shaaha oo kaleeto wayska okay baa lahahdaa xanuunada ku badan baa lahahdaa biida aada hawla yaabina laakiin daraasooyin baa la sameeyey qofkow waad baari kartaa xanuunada ugu faraha badan waa xanuunaha maskaxda iyaga ayaa ku badan nooca biid ah xanuunada maskaxda iyo waalida iyo waxaasa ku badan 10 inoo waalwaala nimanka haddaynu soo qabano magaalada hargeysa dhex maraya oo 10 kaba la baadho dhiigooda waxa laga yaaba 8 inay B yihiin labada soo hadhayna midna oo noqdo midna eebaa suuragala waa wax suuragala waa probability wax waxiya maaha laakiin waa cilmi baadhida noocyadaas waxa ku badan waxa kaloo ku xanuunkan la yihahdo ilowgu Zuhaymarka la yihahdaa waa noocaas biida ayuu ku badan yahay haddaba qolada biida waa maxay waxyaabaha ay ku fiican yihiin shaqo ahaan si uu qofku dee uu soo ogaado shaqooyinku ku fiican yahay horta baadhuu noqon karaa dadkan baadhayaasha ah amba cilmi baadhuu noqon karaa sirdoon buu noqon karaa weriyuu noqon karaa dadka farshaxanka ayaa ka soo baxa dadka magaranaysaayay ee cilmi nafsiga ayaa ka soo baxa shaqooyinkaasoo dhan kuwa kalena way qaban karaan laakiin shaqooyinka aadka applicable-ka u ah waa shaqooyinka noocaasi weeye nooca ugu dambeeya
ee la yidhaahdo type o bal in yar iyagana aan ka tilmaamo. nooca kani oodu horta waxaa la tilmaama lahdaa waa dad kalsooni dheeraad a leh, inta badan self sufficient, kalsooni dheeraaday leeyihin. sidoo kaleeto dadka dhiigoodu owda yahay waa dad bulshaawiya la yidhahdaa, xagga bulshaawinimada waa dad aada u bulshaawiya oo firfircoon oo isla markaasi inta badan inay kasoo dhex baxaan dadka ka muuqdaan ayay jecel yihiin. waa dadka caanka noqda weeyaan, dad caan inay noqdaan oo mujtamaca ay ka dhex muuqdaan ayaa weeye dabeecadooda ay jeceshahay. oo waa dad attraction bay leeyihin, soo jiidasho. waa dad adkaysi badan baa lahada, jidhkooda xataa jidhkooda difaacooda adkaysigu u leeyahay. waxa weeye xataa xanuunada difaac bay u leeyihin. qofka eeda duriga uma adkaysan karo xataa hadduu u yahay, laakiin dadka oodahi waa dad adkaysi badan, systemkooda jidhka ayaa adkaysi ule baa layahdaa. waa dad qaabkooda wanaagsan yahay, structurekooda amba maaragtay physical appearancekooda aada u fiican yahay oo qaab dhis le weeye. waa dad maareeya mushkilad kasta oo ku timaada, way maareeyaan. waa dad nasiib wanaagsan, inta badan aada u nasiib fiican weeye. waa dad seexan kara, waa dadka ugu hurdada badan baa la tilmaama. 24 hours buu seexan kara bale dadka oodahi, 24 saacadood buu hurdi karaa. haddii durbaan laga agtumo, haddii sanqadh kasta ka baxayso, meel kastana way ku gamaan baa lahdaa. meel alla meeshii uu soo gaadho ku gamaya, gaadhiguu ku gamayaa, meesha shaqadu ku gamayaa. dadka xagga hurdada waa ku fiican yihiin. hadduu bun cuno, hadduu jaad cuno, wax alla waxaaso dhan waxba ka qaadi maayaan. sidoo kaleeto dumarka ugu quruxda badani dadka ooda ayaa guursada. haddii la baadho imaka dadka ooda ay dumarkooda waa dadka ugu quruxda badan yihiin. waa wax la baadhi karo weeyaan. sababtuna waxa weeyaan waa dad habdhaqan fiican lahoo kan eeda ay isagu nasiibkiisu u xumaado, gabadh foolxun igu soo hagaagaysaa, de waa qof dabeecad wanaagsan male, waa qof aada u furfuran ma aha. marka hal qof unbuu la sheekaysanaya, qofka ula sheekaysto nasiibkiisu markuu soo hagaajiyo taasunbuu ku dhacaya. halka oodu 10 buu isagu la sheekaysan, ninkan maaragtay dabeecadda fiican 10 buu isku wadaayo, mid doono markaa ka xulanaya. marka waxa waa dadka ugu nasiibka wadaana, ugu nasiibka fiican ee dumarkooda ay qurux badan yihiin. qof walbana istijaabiyo isbaa haddaad doontid. marka theorygan aan ka sheekeynayo amba waad reject garayn doontaa amba waad accept garayn doontaa, daraasooyinkana waad akhriyi doontaa. haddaba dabeecadaha xunxun qofkan uu leeyahay waa maxay? qofka ooda ahi inta badan horta waxay jecel yihiin, waa dad ka helaa meelahan xafladahay ka jecel yihiin. waa dad xafladun buu taagan yahay, xidhiidhinta barnaamijyada inuu isagu number 1 ka noqdo, inuu meel walba ka muuqdo. waa dadkan ay Soomaalidu tiraahdo isqorka amba goolwadaynta, dadka ku fiican baa kasoo baxa bilaa noocan la yiraahdo ooda. waxa kaloo ay jecel yihiin in ay wax kasta iyagu ay ummadda ka dhex muuqdaan. oo sidoo kaleeto lama saadaalin karo dabeecadooda, qof la saadaalin kara maaha. 10 qof ayuu la socon karaa oo uu qof walba kula socon karaa wejigu doono. marka waa dad aan la saadaalin karin weeyaan. inta badan waxa la yihahdaa dad waa dadka ugu muranka badan, way muran badan yihiin xagga muranka iyo waxyaabaha caynkaasi. waa dad aada u muran badan oo inta badan murma, oo sheekooyinkoodu muran fara badan bay leeyihiin. waa dad inta badan dhexdhexaad ah, wax kasta waa ka dhexdhexaad. marka which means waxa weeyaan laba qof oo halkaa ma oranaya war adigaa sax iyo adigaa qalada, wax kasta waa ka dhexdhexaad ma kala. marka waa qof aan la saadaalin karin weeye. haddaba haddaynu eegno waa maxay cunooyinka ku habboon, cuntooyinka ku habboon ilaahay ugu talagalay markuu qofku oo yahay. raashinka iyaga number 1 ka waxa weeye waa hilibka, waa hilib cun. waa humuun bay u qabaan oo waxa ugu horeeya marka raashin loo soo dhigo hilib cun weeyaan. marka xagga waxay ka matelaan baa leedahay wuxuushta sida dhuurwaaga iyo libaaxa iyo waxyaabaha hilib cunka ay ka matelaan. oo waa dad hilib cuna weeye. waa raashinkooda ugu fiican weeye ay isticmaalaan. marka iyo waxyaabaha proteinska ay ku badan yihiin. daad waay waxa ka soo baxa dadka buurbuuran, dadka aadka u buurbuuran inta badan oo weeye. waayo xataa stress kuu ka yaryahay, mashaakil fara badan male, protein iyo waxyaabaha fatiska ay isticmaalayaan. marka waa dadka buurbuuranay boqolkiiba inta ugu faraha badan waa iyaga, dadka ooda ayuu ka soo baxaan. xanuunada ugu badan ku dhaca waxa kamid ah xanuunada la yiraahdo skin disease-ka, waxyaabahan maartay
waxa kaloo xiiqda waa xiiqdoo kaleeto way ku dhacdaa dadka wax xanuunada ugu badan ay leeyihiin. haddaba shaqooyinka ay ku fiican waa maxay? shaqooyinka ay ku fiican waxaa ka mid ah dadka siyaasiyiinta ee politicianku iyagu ka soo baxa, dadka suuqgeynta wax marketinga dadka ka shaqeeya iyagu ka soo baxa baa lahdaa, dadka la taliyayaashu iyagu ka soo baxa baa lahdaa. weliba waxa aan ka sheekeynayno shaqooyinka ay ku fiican yihiin sababtu waxa weeye waxa u suuro gelinaya dabeecadaha ay leeyihiin. qofka marketinga ah waad garanaysaa waa qof furfuran. qofka siyaasiga ahi, dadka siyaasiyiinta politicianku inta badan oo bay u badan yihiin baa la dhahdaa. eegada politician means ma noqon karo xataa leadership, bal imanka xataa waddankan haddaynu ku abalay gareeno falsafada noocaasiya, ninka siyaasiga maadaama uu wadiga arkaya maanta xisbigan buu ku jiraa, xisbigan buu soo baxaya, kaasuu gelaya. yani waa qof ismuujin badan weeye, waa qof daddhexgelitaan badan weeye, waa qof magaranaysa, waa qof flexible ah. markaa dadka politicianska inta badan waxa la yidhaha waxay kasoo waa oobay u badan yihiin. waxa markaad ku qiyaastaa dadka inaga dhexdeena ahee politicianska ah la yidhaahdo ooda, gaar ahaan o minus haddii ay hooyadu noqoto, o minus weeyaan o negative wuu hawl badan yahay. waayo adduunyada dadka oo negativeka way yaryihiin, aad ba u yaryihiin caalamka oo dhan marka la eego waa wax kooban. markaa hooyadu haddii la ogaado inay dhiigeedu oo negative u yahay, waxa wanaagsan marka ay uur leedahay in la mudo. irbad baa markaa lagu mudaa si caruurta looga duwo oo aanay caruurta nooceeda yeelan. sababta waxa way mushkilad weyn baa dhacaysa oo caruurtu laftigooda inay ka raacaan baa suuragala. marka inta badan irbad baa lagu mudaa hooyada oo negativeka ah, waana arin aad iyo aad u hawl badan. waxa kaloo daraasadaha qaarkood ay tilmaamayaan hooyada ooda ay haddii ay 30 jir dhaafto inay dhalmadu ku yaraato amba aanay dhalinba. waayo marka horeba daraasaadka qaarkood waxay tilmaamayaan hooyada ooda ahi inay dhalmo yar tahay. marka hadday 30 years ka gudubto, 30 sannadood hadday ka gudubto, waxa la leeyahay probability-ga u badan inay dhalmaba aanay helin baa suuragala. marka waa waxyaabo daraasaadka qaarkood ay muujinayaan. sidaa awgeed waxa weeyaan waxa muhiima xataa ayaa lahdaa dhiigaga qaarkood way istiidaan. dadka isqaba dhiigaga qaarkood baa istiidaan. marka dhiigu hadduu istiidan yahay si caruurtu aanay uga soo dhicin gabadha, oo waxaa jira dumar mar walba uu ka soo dhaco ilmuhu. marka la ogaado in hooyada iyo aabbahaasi ay kala dhiig duwan yihiin oo dhiigooda istiidayo, soo kaleeto irbadaha lagu mudaa si loo suuro geliyo in ubadka amba caruurta uurka ku jira ay badbaadaan oo nabad qabaan. marka waxyaaba fara badan oo dee cilmiga uu tilmaamayaa jira. dee aragtiyahaas aan tilmaamayo iyo qaar kaloo badani way jiraan. inta badanna dee waxaa aada aqoonta ugu sila waa dadka dhakhaatiirta weeye. intaa haddii aan kaga soo baxo saddexda nooce muhiimka ah. nooc a b yaa jira, iyagoo positive iyo negative oo fara badanna way jiraan, laakiin inta muhiimka waa saddexdaa nooc weeye. waa eeda iyo bida iyo ooda. sidoo kaleeto waxyaabaha muhiimka ah dhigagu ay go-aan ka qaataan waxaa kamid a qaabku qofka u seexanayo. qof kastoo bini aadmiya waanu ognahay oo imanka qaab gooniya u seexda. dadka eeda ahi qaab seexashadoodu waa qaab yaroo curduduba ahoo intay way isduubaanoo intuu lugaha soo laabo ayuu madaxana gacanta hoosta ka geliya. waa dadka eeda ahi inta badanna iyagoo fikiraya urursan bay seexdaan baladay gamaan. qofka ooda ahi intuu dhabarka isu tuuro labada gacmood iyo saa isu kala bixiya baa la yihahda ayuu iska gamaya, isagoo markiiba iska gamaya. waa qolada ooda ah. dadka biida ah iyaduna dhabarka uma seexdaan, waxaa laga yaabaa inay ku bilaabaan hurdada intay caloosha u seexdaan, lugahana midna uu saa u yaro taago kadibna isna wuu gamaya. laakiin noocan eeda ahi iyadu way mushkilad badan tahayoo sidiisaba dhiiga noocan baa iska problem badanoo si yaroo curdudaba ahoo uu isa soo wada koobiya u seexanaya. marka xataa xagga hurdada ayaa uu go-aan ka qaataa nooca dhiiggaagu yahay. waana baaritaankana waynu wada samaynayna daawade baaritaanka waynu samaynayna. qof walba waad baaraysaa waxa kan aan ka hadlayo. sidoo kaleeto waxaa la tilmaama xagga timeka, marka maamulidda timeka, inkastoon jecelahay maamulidda timeka inaynu wakti ku qaadan doono iyo barnaamij gooniya oo qaabkan ay dadku uga hadlaan buugta uga hadla qaab ka duwan baynu uga hadli doonaa markaynu ka hadlayno maamulidda waktiga oo program dhan buu noqon doonaa. laakiin waxaa la tilmaamaa marka ay noqoto xagga timeka iyo maamulidiisu dadka eedaa ugu fiican baa lahada.
barnaamij kastaba saad ku arki doontaan sawirada halkan 8 brogram sida u kala horeeyaan buu qofka eedu mid walba uga soo baxaya ilaa barnaamijka koowaad ilaa barnaamijka ugu dambeeya ilaa ka ugu horeeya sida ugu habboon buu u maamulanaya halka dadka ooda ahi 8 barnaamij labada maalmood ee ugu dambeeya buu wixiiba hal mar u dusha kaga dhacaya qolada biidahi markuu barnaamij iyo shaqo uu qabanayo kolba intuu yar qabto ayuu ka tegayaa isagoo goosa ayuu shaqooyinkiisa u qabtaa waxa iyadana la yaab leh noocan leehdo AB isku jira 8 halka waad arki doontaa markaynu ka hadlayna time management waad arki doontaanoo maalinta ugu horeysa ayuu si madaxa u wada dhiganaya wixii oo hal mar buu doonaya wixii inuu wada qabto oo markaasuu culays xad dhaaf u saaraya marka xagga time managementka laftigiisu ama maamulitaanka waxa go-aan ka qaataan nooca dhiigaagu yahay ayaa go-aan ka qaadanaya marka daraasooyinkani waxyaabo fara badan ayay go-aan ka qaataan oo noloshaada ah marka waxa muhiim ah qof kastoo bini aadmiya amba dadkan programkan daawanaya barnaamijkani in ay ogaadaan nooca dhiigaagu yahay haw ogaan oo quraato hadday dhibaata kugu dhacdo amba qof dhibaataysan in lagaaga shubo dhiig amba adiga dhiig lagaaga shubo haw baran laakiin waxaad u barataa noloshaada oo dhan buu saameyn ku leeyahay qaab dhiigaagu nooc uu yahay raashinkaagaan idhi waxaynu idhi xanuunada ku dhici karaan nidhi waxyaabuhu ku fiican yahay waxyaabuhu ku xum yahay shaqooyinka uu ku fiican yahay ee ay tahay inuu doonto daraasadaha haddaba haddii aan intaa aynu kaga baxno bal tilmaamaha kookooban weliba aadka u kookooban aan soo qaatay haddaan in yaroo scientific amba cilmiyana tilmaamno waxaa la yidhahdaa xagga sideebay dadku ku kala yihiin dhiigga sidee ku kala badan yahay daraasaduhu waxay tilmaamaan nooca eeda dadka ahi 42% weeye 42% weeyaan halka dadka oodo ahina ay yihiin 46 bal adeegsay maad 46 waa oo 42 waa ee halka biida nooca biida ahi waa 9% 97 weeyaan saddexda soo haray waa nooca e iyo biida weeyaan saddex baa soo haray saddexdaas soo haray 3% markaanu leenahay saddex baa soo haray waa A iyo B haddaba daraasadaha kale daraasaduhu sidoo kale waxay tilmaamaan qolada dhakhaatiirtuna way arrintaa iyaga inooga aqoon badan dhiigga oo la yidhaahdo waa qaybiye oodu eeda iyo biida iyo eedii biida intaba wuu siin karaa oodu halka eedu eedii biida way siin kartaa biiduna e iyo b way siin karaan iyaduna waysa siin kartaa biidu eedu iyaduna waysa siin kartaa e iyo b iyaduna waysa siin kartaa marka daraasadahaasa lagu ogaaday waxyaabaha aan soo tilmaamay waxaan kusoo gabagabeyneynaa brograamkeenan aadka u kooban waxaa habboon inuu qofku ogaado xidhiidhka dhiiggiisa iyo dabeecaddiisa xidhiidhka dhiigga uu leeyahay iyo xanuunada uu halis noqon karo xidhiidhka dhiigga nooca uu leeyahay iyo raashinka ku habboon xidhiidhka dhiiggiisa ka dhaxeeya iyo shaqada ku habboon ee tahay inuu doonto taa macnaheedu maaha 100% theoriska iyo waxyaabaha aynu akhriyayna waa sax maaha waxa saxda waa qur-aanka iyo sunnaha nebiga laakiin waxan waa daraaso dad baa sameeyey waanay noqon karaan sax waa noqon karaan qalad laakiin daraasaadkan dad baa ayaa sameeyey oo in badan ka sameeyey oo waqti badan ku bixiyey soona ogaaday inta badan researchyadana waxa weeyaan research marka la sameynayo amba daraaso waxbaa lagu soo ogaadaa xog baa lagu aruuriyaa waxaa la yihahdaa experimental baa la sameynaya experimental means waxa weeyaan wixii baa waa la baarayaa wixii marka amba sax buu noqon karaa amba qalad buu noqon karaa marka waxaan rajeynayaa insha allah waxaan rajeynayaa in dadka ina daawanaya ay baaritaan ay sameeyaan waxyaabahan aan ka hadlayan soo bandhigay inay sax yihiin iyo in kale qof walba waxa laga rabaa maanta buwaag baad helaysaa laga qoray blood typeka iyo xidhiidhka uu leeyahay qofka dabeecadiisa iyo noloshiisa waad google garayn kartaa meelo badan baad ka eegi kartaa intaasoo buug ayaa waxaanu ka soo diyaariyey oo aan soo akhriyey meelo badan baan ayaa reference aan usoo qaadanay
marka qofka programkan nasiib u hela inuu daawado asaga ayaanu ka rajeynaynaa inuu isagu sii baadho aqoon dheeraad u yeesho oo aanu noqon dhiiga kugu jiraa in markaad u baahatid in lagugu shubo unaad u baahan tahay laakiin waa waxaad ogaan doontaa dhaqankaaga dabeecadaada wanaagsan dabeecadaada xun nasiibkaaga raashinka kugu haboon ee jidhkaaga ku haboon waxyaabaha aad tahay inaad ka afford garaysid amba aad ka dheeraatid ee xanuunada kugu dhici kara marka daawade intaasaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkaasi intaynu mid kale isugu iman doono oo kanoo kale ah waxaan idinka tegaya wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu